wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada arrimaha falanqaynta siyaasadda iyo sirdoonka caalamka. Qodobada wararkeena waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Jawish Oglo ayaa sheegay in Haftar uusan wax sharciyad ah ku lahayn dalka Liibiya isla markaana aysan waajib ahayn inuu soo fariisto miiska wada hadallada. Dowladda Kenya ayaa ku guuleysatay kursigii aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka. Turkiga ayaa ka carooday soo jeedinta Ruushka ee xabad joojinta degdega ah ee Liibiya, iyo dowladaha Mareykanka iyo Faransiiska ayaa kala eedeeyay dalalka Turkiga iyo Ruushka. Wararkaas iyo warar kaleeto oo inoo soo socda daawadayaal ku soo dhawaada iyagoo faahfaahsan. daawadayaal ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan. wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Jawish Oglo ayaa shaaca ka qaaday in Haftar uusan wax sharciyad ah ku lahayn gudaha Liibiya, sidaas darteedna aysan habboonayn inuu soo fariisto miiska wada hadallada. Wuxuu u cadeeyay Jawish Oglo intii lagu guda jiray wareysi ay la yeelatay CNN-ta Turkiga in dadaaladii la sameeyay intii lagu guda jiray wada hadalladii Berlin iyo Moscow ay ku dhawaaqeen xabad joojin guul daraysatay, taas oo uu ku macneeyay mowqifka Haftar iyo marmarsiinyihiisa aan la aqbali karin. Jawish Oglo ayaa yiri Haftar wax awood ah ma lahan hadda, asal ahaanna wax sharciyad ah ma laha, isagoo sii sharaxaya wax uu ugu yeeray shakhsi inqilaabaysta ah sida Haftar aan loo baahnayn in wax tanaasul ah ama jixinjix ah loo muujiyo. sidoo kale Jawish Oglo wuxuu cadeeyay in arrinta xabad joojinta aysan ahayn inay qayb ka noqoto miiska wada hadallada waqtigan. Wuxuu kaloo intaas ku daray in Turkigu uu sii wadi doono inay siiyaan nooc kasta oo taageero ah dowladda sharciga ah ee Liibiya. wasiirkan ayaa ku nuxnuxsaday inay lama huraan tahay in dowladda Liibiya ee caalamku aqoonsan yahay inay dib u qabsato magaalada istiraatiijiga ah ee Sirta iyo saldhigga Al-Jufra iyo aagga shidaalka ee la yiraahdo Al-Hilaal ka hor heshiiska xabad joojinta ah ee ay soo jeediyeen dowladaha dabada ka riixaya Generaal Haftar. dhanka kale dowladda Mareykanka ayaa ku eedeysay in Ruushka uu ka wado tallaabooyin daandaansi ah gudaha Liibiya, ayna hareer martay dowladda sharciga ah ee Liibiya. taliska militariga Mareykanka ee Africom oo soo bandhigay sawirro ay dayax gacmeed uga qaadeen diyaaradaha Ruushka oo dhaqdhaqaaqyo ka bilaabay saldhigga Al-Jufra ee dhaca bartamaha Liibiya iyo hawada magaalooyinka Sirta iyo Masrata. Mareykanka ayaa sheegay inaysan aqbali doonin wax uu ku tilmaamay tallaabooyin guracan oo baalmarsan qawaaniinta qaramada midoobay. Mareykanka ayaa cabsi ka muujiyay in Ruushku uu saldhigyo militari ku yeesho gudaha dalka Liibiya, taas oo uu ku macneeyay inay halis ku tahay badqabka danaha Mareykanka ee Afrika iyo waliba badqabka amni ee xulafadiisa midowga Yurub. Mareykanka ayaa cadaadis ku saaray dowladaha Masar iyo Imaaraadka Carabta inay joojiyaan wada shaqaynta ay la leeyihiin calooshooda u shaqaystayaasha shirkadda Wagner Group ee Ruushka laga leeyahay. dhanka kale Mareykanka ayaa Ruushka ku eedeeyay in shirkaddan uu Ruushku uga macaasho dalalka ay dagaalada sokeeye ka dhacaan ayna khatar gelinayso amniga caalamka. ha yeeshee Ruushku wuxuu eedeymahaas ku tilmaamay kuwo wax kama jiraan ah oo uu Mareykanku ku doonayo inuu ku xumeeyo wajiga wanaagsan ee Ruushku kula macaamilo caalamka. dhanka kale dowladda Turkiga ayaa aad uga carootay soo jeedinta Ruushka ee ah xabad joojin degdeg ah in laga dhaqangeliyo gudaha dalka Liibiya. dowladda Turkiga ayaa sheegtay inay waajib ku tahay inay taageerto go'aanka dowladda Liibiya ee sharciga ah ay ku doonayso inay dib u qabsato magaalada Sirta iyo deegaanada hoos yimaada
dowladda Ruushka ayaa aad uga walwalsan in dowladda dib u heshiisiinta qaran ee Liibiya ay qabsato magaalada Sirta dabadeedna ay u soo ruuqaansato saldhigga Al-Jufra oo ay hadda ku sugan yihiin diyaaradihiisa iyo ciidamada calooshood u shaqaystayaasha ah ee uu ku taageero Xaftar. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku eedeeyay in Turkigu uu carqaladeynayo howlgalka midowga Yurub ay ugu magac dareen Irinin oo ay sheegeen inay ku ilaalinayaan hubinta cunaqabataynta hubka saaran dalka Liibiya isla markaana ay ka hortagi doonaan hubka sida sharci darrada ah ee Liibiya uga soo galaya dhanka badda. sidoo kale madaxweynaha Faransiiska ayaa ku eedeeyay in Turkigu uu sii wado wax uu ugu yeeray tallaabooyinkiisa guracan uu ku doonayo inuu colaadda Liibiya sii kiciyo marka ka dambaysa. hayeeshee dowladda Turkiga ayaa iska fogeysay eedeymahaas waxayna eedeymahaas ku tilmaantay kuwo la soo dhoodhoobay oo la doonayo in Turkiga lagu khasbo inuu joojiyo taageerada military uu siinayo dowladda sharciga ah ee Liibiya. Turkiga ayaa ku eedeeyay Faransiiska inuu doonayo inuu dhaco kheyraadka dalka Liibiya sida uu u dhaco kheyraadka dalal badan oo Afrikaan ah. dowladda Faransiiska ayaa aad uga niyad jabtay guuldarrooyinkii isxiixiga ee soo gaaray Xaftar waxayna quus ka muujiyeen mashruuceedii ay ku doonaysay inay Liibiya si dadban u guumaysato oo ay kheyraadkeeda u dhuuqdo. Kenya ayaa shalay ku guuleysatay kursi aan joogto ahayn oo ka tirsan golaha ammaanka ee qaramada midoobay kadib markii ay codadkii loo baahnaa ka heshay tartankii kala dhaxeeyay Djibouti. Nairobi ayaa wareegga labaad ee doorashada heshay 129 cod halka Djibouti ay heshay 62 cod. hogaamiyaha aqlabiyadda ee baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa sheegay in dalkiisa uu ka shaqayn doono wanaajinta ammaanka caalamka gaar ahaan kan gobolka. Ducaale oo BBC-da laanta af Soomaaliga u warramay ayaa sheegay in dalkiisa aanu kursiga u adeegsan doonin khilaafka kala dhaxeeya Soomaaliya ee salka ku haya muran xuduudeedka labada dal. waxaan u maleynayaa in Soomaaliya ay ka mid ahayd dalalkii noo codeeyay markii aan musharaxa ka ahayn midowga Afrika. arrinta badda waxay hortaallaa maxkamadda caalamiga ah ee ICJ. Soomaaliya waxay ogoshahay maxkamadda waxay go'aamiso annagana sidoo kale dalal walaalo ah ayaan nahay mana kala go'ayno ayuu yiri Aadan Barre Ducaale. guusha Kenya ayaa ka dhigan in bisha January 2021 ay muddo 2 sano ah ka mid noqon doonto 15 xubneed ee golaha ugu awoodda badan marka laga hadlayo ammaanka iyo xasiloonida caalamka. go'aanada ay Kenya ku lug lahaan karto waxaa ka mid ah cunaqabataynta adeegsiga awood military si loo ilaaliyo nabadda iyo weliba doorashada xaakimiinta maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ. loolanka xooggan ee dhexmaray Kenya iyo Djibouti ayaa daaha ka rogay khilaafka u dhaxeeya qaar ka mid ah dalalka bariga Afrika. Soomaaliya ayaa taageertay hamiga Djibouti ee kursigaasi kadib markii uu dalkaasi ka hor yimid go'aankii midowga Afrika uu ku taageeray musharaxnimada Kenya. Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxa ka dhaxeeya muran ku aadan xuduud badeedka labada wadan kaasoo hadda hor yaalla maxkamadda ICJ. maleeshiyaadka gooni-goosatada ah ee koonfurta Yemen oo Imaaraadku taageero ayaa la soo sheegayaa inay la wareegeen maamulka jasiiradda Suqadara. wararka kale ee ka imaanaya jasiiraddaas ayaa soo sheegaya inay jiraan isku dhacyo dhexmaray ciidamo taageersan dowladda Yemen ee sharciga ah iyo kooxda gooni-goosadka ah ee uu taageero Imaaraadku. Imaaraadka ayaa sanadahan dambe dagaalo ka waday dalal ay ka mid yihiin Liibiya iyo Yemen walow uu labadaas dal uu ku soo fashilmay. Imaaraadka ayaa hadda wuxuu u muuqdaa mid dib isu soo abaabulaya oo doonaya inuu soo ceshado doorkii siyaasadeed iyo military ee uu ku lahaa dalalka Yemen iyo Soomaaliya.
dhanka kale dowladda Yemen ayaanan weli ka hadlin falalka cusub ee ka soo cusboonaaday jasiiradda Suqadara, waxaana la soo warinayaa in saacadaha soo socda ay ka hadli doonto dhacdadaas ka soo korortay jasiiradda Suqadara. walow la sheegayo dowladda Imaaraadka Carabtu inay ku cadaadinayso Maxamed bin Salmaan oo ah dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga, haddana ah ninka awoodda boqortooyadu ay gacantiisa ku jirto inuu ka hortago war-saxaafadeedka dowladda Yemen. Imaaraadka Carabta ayaa doonaya inuu gebi ahaanba uu la wareego gacan ku haynta jasiiradda Suqadara, isagoo u marayo kooxo gooni-goosad ah uu tababaro oo uu taakuleeyo. guud ahaan falanqayntii siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka waa naga intaan qaybta xigta ku kulmayno. nabadgelyo.